بسم الله الرحمن الرحيم. لما درست علوم دنيا لم أجد من لذة فيها وحق مستبين، أقبلت في قسم الشريعة أرتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين. لما درست علوم دنيا لم أجد من لذة فيها وحق مستبين، أقبلت في قسم الشريعة أرتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين. ما بين فقه أو أصول واعتقاد أو حديث الصادق الهادي الأمين، أو بين تفسير وقرآن وزاد. runtii dowradan hadafkeeda ugu muhiimsan waxa weeye waana laydiin sheegi doonaaye cilmiga ilaahay ee sharciga ahaa oo dadka ay kasii fogaanayaan in dadka loo bidhaamiyo ahamiyadiisa culimmada inoo faahfaahin doona anigoo runtii sida la sheegayba laygu marti qaaday inaan idiin furo oo keliya waxaan leeyahay dowradii ciwaankeedu ahaa ahamiyatu tacallum alcilmi sharci lilfardi walmujtamac oo saaka aynu ku ballansanayn وين أفرنتهاي وجزاكم الله خير. رياح العلم هبت حين جادت فسارت تملأ الدنيا ازدهارا، وطار القوم للعليا جنودا وبالأمجاد يحيون الديارا. ولكن شنطة الدين أيا وهرية هدي الدين لوايه قفك نلش أو ونولان كرا طبعا، laakiin noloshiisu nolol xayawaannimo ah bay ka sii liidanaysaa sida allaba uu yidhi. marka haddii culimo wax sheegta la waayo macnaheedu waxay tahay dadka waxaa ka maqan daruura min addaruuraat. النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى شيء كليا كيري الله ويديسو إنو كو سياديو وعلمك شرع دوا وقل رب زدني علما. ابن قيم وحو ليه الشرف انتا ساقو فلان علمك شريعة محايا لي هديب النبي محمد الله أمري إنو إلهي ويديستو زيادو علمك إي سيادي وو هيستاه لكن إي سيادي كون كان محاقو تيميادي مسألة سؤالي كويت الدنيا دا المحال لقو كياني وحال لقو كياني محايت لا إناد وحوغا قروشا انتاد أروسته الدنيا دا إساقان نولاته مي لكن وحال لقو كان وامحي وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مركا علوم الشرعية برانيسي معنى هذا وحوي وحد حقيقي sidaad allihii ku abuuray aad u caabudi lahayd si xikmadii lagu abuuray aad uga dhabayso. وتعليما لنا بالمجد سارا، نريد العلم في ثوب جديد لنجني من تعلمه الثمارا، لتشرق أرضنا بالخير فينا وندعو للعلا سرا. jaamacadda Soomaaliya maadaama magaca Soomaaliya ay wadato manasadani minbarkan ama goobo kala ahaato intaan joogo inta jaamacadda jirtay insha Allah waxaan rabnaa culimada Soomaaliyeed cid allaala cidii kelimad wacdi ah sheegi karto mujtamacaan badbaadin karto diyaar inay u tahay u furan tahay kana soo qayb galaan. halkaas waxaa ku qoran waxyaabaha ka filayo inaan qabano nadawaad macrifiya, inaan qabano nadawaad cilmiya oo maanta aan taaganahay, in aan qabano tadriibaad mihaniya ardadeena inaan u tababarno inay bulshada u khidmeeyaan nafsadooda anfacaan bulshadana ay anfacaan. mu'tamaraad cilmiya oo aan rajaynayo xilliga ugu soo horeeyo ugu soo dhow aad ka filan doontaan kuliyadda shareecada
jaamacadda Soomaaliya iyo in allaala intaan kaashan karno culummada Soomaaliyeed dal ha joogeen dibad ha joogeen inaan idinkugu yeeri doono idinkuna aad dhagihiina noo furtaan sida hadda aad noo ajiibteen si ka fiican aad noo soo ajiibtaan mahad celin gaar ah u jeedinayaa inta la ajiibtay yiraahdeen waa mas'uuliyadda bulshada aan u haynay aan rabno inaan dhagahooda gaarsiino maanta caalamka aad ogtiin gurigu noqday hadda wixii maanta meeshan ka dhacay qof walba nasiib u lahaa internet haysta قلبي في أحبابه حلو الفصول ولقد تبدى حب قلبي للبشر حب الشريعة ليس يعروه الذبول قد طاب حب يجتنى منه الثمر ثمر تدلى يانع خضر عسول وكأنما يسقى على قطر المطر فإلى رياض العلم أرباب العقول ولتأخذوا فقها عن الشيخ الأغر نحيا على ذكر الإله كذا الرسول والقلب للجنة دوما في سفر فيها المواعظ والدلائل للوصول نصح وحب وانشراح للصدر للقلب في أحبابه حلو الفصول ولقد تبدى حب قلبي للبشر حب الشريعة ليس يعروه الذبول قد طاب حب يجتنى منه الثمر قرآن ربي منهج